السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي igu qaaliga ah ay ku soo dhawaada kanaalka Summit Production iyo walaalkiin Maxamed Xasan. waa mar kale iyo muuqaal cusub iyo koorskan imtixaanaha ahaa ee Audacity Sound Editor. casharkii kan ka horeeyay waxa aynu ku soo aragnay interface-ka application-ka ama software-ka. waxa aynu soo baranay toolska halka kaaga muuqdo oo dhan iyo mid kastaaba waxa uu qabto. caaway waxa aynu guda galaynaa mid kasta iyo wuxuu qabto inagoo practical sameynayna, codna duubayna, hagaajintiisana guda galaynaa. marka ila socda. marka koowaad waxa aynu sameynaynaa horaan idinku soo sheegay waxa ay qabtaanin toolska halka kaaga muuqda. waxa aynu guda galaynaa inaynu cod duubno. marka koowaad si aynu cod duubno waxaynu ku dhufanaynaa barta guduudan. sidaas ayuu noo ku duumayaa codkeeni. sida u jeedaanin waveska way socdaanin oo codka waa uu duumayaa, laakiin waveska waa uu yar yahay. sababtuna waxa ay tahay computerkayga oo codka duubista codkiisu ay liidato, ama microphone-ka laptopkayga oo xun awgiis. codka inoo duumaya bal aynu joojino si aynu stop u niraahno. waxaynu taabanaynaa bartaas hadda uu mouse-ku ii saaran yahay. hadda waa aynu joojinay. haddaba waxaynu u baahannahay codkeennii in aynu dhegaysano si aynu hadha u ogaano isbeddelka iyo meesha uu ka imaanayo. bal aynu soo ceshano haddaba meesha ugu horreysay ka soo bilowno. sida u jeedaanin hadda waa aynu bilaabanaynaa si aan u dhegaysano codkaas aynu hore u duubnay. waxa aan qiyaasayaa codka inuu aad u gaaban yahay microphone-kayga awgiis. marka waa aynu dheerayn doonaa, laakiin ila socdo horta codka ila dhegaysta iyo shucaaca ku jira iyo bal ila arka horta iyo meelaha banbanaan iyo waxaan qiyaasayaa inaydan maqlayn codkaas. waase uu socdaa, waana u jeedaa nin waveska halkaan inuu codkaynu duubna inuu socdo, laakiin sababta ciidan u maqlayn aniga ayaa idin sheegi doona. marka ila socda. hadda waxaynu doonaynaa codkaas aynu duubna inaynu dheerayno maadaama uu aad u gaaban yahay. insha allah waxaynu ka dheeraynaynaa bartaas u jeedaan muuskaygu saaran yahay. dhinaca kan waa minuska waa codka gaabi, dhankaana waa codka dheeray. ila socda marka bal aan dheerayno. waa dheeraynaynaa. waxaynu ku qiyaasaynaa meel macquula. saasuu inoo ku dheer yahay. tan hoose haddii aad taabato waxa uu noqonayaa saamacadda aad ku dhegaysanayso telefoon wuxuu samaynayaa hal dhinac ayay kaaga baxaysaa, ama lefti bay kaaga baxaysaa ama right. yacni labada dhinac kama wada maqli kartid, lefti iyo right saamacadda haddii earphone isticmaalayso iyo haddaad computer isticmaalaysid iyo haddaad telefoon isticmaalaysid. hal dhinac ayuu kasoo baxayaa codkaas. hadda waxaynu aragnay sida codka loo duubo, sida loo joojiyo iyo sida loo dhaqaajiyo iyo sida stop loo dhaho iyo sida pause loo dhaho iyo codka meesha laga dheerayo. haddaba waxa aynu guda galaynaa in codkaas aynu soo duubnay maadaama uu yahay cod qaab daran haddana gaaban oo hadda aynu dheeraynay, in aynu bal ku samayno maxay ahaydtay inaynu ka saarno horta bal maxaa la reduction-ka ku jira ama shucaaca ku jira inaynu ka saarno marka ugu horeysa. si aynu uga saarno shucaaca ku jira maxaynu sameynaynaa? waxa aynu sameynaynaa waxa isla taabanaysaa si aad u wada doorato oo select all u samaysid control iyo a. control iyo a baa waxaad ka wada select garayn kartaa. haddii aadan control a isticmaali karin waxaad samayn kartaa, waxaad tegi kartaa meesha select ku qoran tahay tuulasha sare, kadibna waxaad taabanaysaa all. halka all waxaad uga jeedaa horteeda inay ku qoran tahay shortcut-ka ah control plus a. marka ila socda. control a ayaan nidhi, isla markaasna wuxuu inoo sameeyey select all buu inoo sameeyey. sidaa u jeedaanin codkii yaraayo aynu duubnay oo tijaabada ahaa. sidaa u jeedaan codkii yaraayo aynu duubnay ee tijaabada ahaa waa inoo wada select garaysan yahay. dhinac kasta haddaa ka fiirisid oo waxaa fuushay khad cad baa fuulay. khadkaa cad waxa uu caddaynayaa inuu ku select garaysan yahay.
marka waxaynu sameynaynaa si aan uga saarno reductionka ku jira waxaynu tegaynaa barta ay ku qoran tahay effect marka aad tagtid waxaad kasii dooranaysaa barta ay ku qoran tahay noise reduction aan ku dhufano noise reduction marka aad tagtid waxaad sameynaysaa barta ay ku qoran tahay okay ma dhahaysid wax kale kama bedbedelaysid barta ay ku qoran tahay get noise profile baa ku dhufanaysa click baa leedahay hadda waxa uu inoo sameeyay waxa uu soo qabtay ama uu fahmay computerkeena ama software-ku meesha codka ay kaga jirto noise-ku meesha uu kaga jiro mar labaad ayaan ku noqonaynaa asagoo sidiisa inoo ku select garaysan ayaan waxaan ku noqonaynaa effect waxaynu ku noqonaynaa isla bartii ahayd noise reduction marka hore waxaan taabanay get noise profile soo ma iminka waxaynu taabanaynaa okay si uu inoo ka saaro wixii shucaac ahaa ee ku jiray codkeena oo ujeedaan hadda isbedel ayaa ku dhacay waveska waa ay yaraadeen sababtuna waxa weeye waxa laga saaray wixii shucaac ahaa ee ku jiray aynu dhegaysano marka waxaynu soo duubnay iyo shaqadii aynu soo qabanay waa ujeedaan hadda wax shucaaca ma lahan waxaynu ku hadhay hal shaqo oo ah in aynu ka saarno meelahaas banbanaan ee codku uu ka aamusan yahay ama markii aan codka duubaya aan aamusay aamusnaan kaliya maaha codku uu kaa khaldami karaa meel kasta oo kaa khaldan codka kaa khaldanta ama kaa kharibanta waxa aad baranaysaa sidii aad isaga jari lahayd software-kan waa software aad muhiim u ah waxyaabo badan baa loo isticmaalaa waxaa loo isticmaalaa aflaanta caalamiga ah waxaa loo isticmaalaa soomaaliduna aad ayay u isticmaashaa sida hadda short filmyada iyo filimaanta musalsalka ah ee ay soo saaraan dhalinyarada Soomaaliyeed intooda badan codka waxa ay ku hagaajiyaan software-kan hortiina ka muuqda ee la yiraahdo Audacity shaqo badan ayuu ku qaban karayaa software-kan marka ila socda asxaabta qaaliga iminka waxaanu doonaynaa bartaas inaynu ka saaro intaas inaynu saarno aamusan maxaan sameynaynaa marka halkaas aynu falaarta dhiganaynaa kadibna waxaynu sameynaynaa falaartaas muujeeda fartaas marka ay u jeesato dhanka aad rabtid iyaad jiidaysaa intaas yar baad highlight saaraysaa inta aad u baahan tahay iyaad highlight garaynaysaa kadib waxaa ku bannaan si aad codkaas u jartid intaas si aad u jartid dhowr wado ayaa ku bannaan mouse-ka inaad qabatid Ctrl X keyboardka inaad qabatid Ctrl X iyo inaad bartaa maqaska ah aad ka jirtid labada wado way ku bannaan tahay hadda maqaska markaan saarno waxa u jeedaan in ay hoostiisa kaaga soo baxdo ama uu ku siinayo magac ah shortcut ah Ctrl+X aynu taabano marka si aynu isaga saarno inta yar iminka waa aynu saaray haddana waxaynu doonaynaa bartaan way aamusan tahay inaanu iska jarno haddana si uu inoo ku soo baxo cod is haysta oo qurux badan oo isku xiran intaasna waynu highlight garaynaynaa isla waxaan taabanaynaa isticmaalaynaa shortcut-ka ah Ctrl X waa aynu saarnay halkan haddana aynu nimaadno bartaas inakeen aynu jiidno si aynu u dooranno kadibna aynu isaga saarno waa aynu calaamadsanay waxaaynu isticmaalaynaa bartaas maqaska waa sidaad u jeedaan wuu inaka saaray bal aynu fiirino gadaal codkeena aynu ka fiirino halkana waxay u baahan tahay in laga jaro intaas aynu calaamadinaynaa waynu calaamadsanay kadibna waxaynu sameynaynaa keyboardkan waxaynu taabanaynaa Ctrl iyo X waa aynu iska jarnay waxaa inoo soo baxaya markaas cod aad u qurux badan oo aan lahayn meel aamusan meel khaldan iyo wax shucaaca intaba waynu calaamadsanay kadib maqaskeena gey jar intaas ay noo hartay inta ugu dambaysanayna ka jar cod qurux badan ayaa iminka inoo soo haray mar labaad aynu daarno intaa hore aynu iska jarno Ctrl X inta tan aynu iska jarno
control x waxay noo soo haray cod yar ee qurux badan si aan u hubino codkeena inuu maxaa lahaayay uusan lahayn wax noise ah waxaynu ku noqonaynaa mar labaad effectska waxaynu saaraynaa highlight marka aynu saarno waxaynu ku noqonaynaa effects kadib waxaynu tegaynaa noise reduction get profile balada get noise profile isbedel ayaad u jeedaa iminka mar labaad ayaan ku noqonayaa waxaan leeyahay noise reduction kadib okay ayaan leeyahay iminka waad u jeedaa waveska way isbedeleen xoogaa waxaan moodaa inay aad u sii yaryaraadeen waxaynu samaynaynaa marka wixii isbedelkii aynu samaynay iyo wixii shaqadii aynu soo qabanay iyana waxaynu samaynaynaa marka waynu safgaraysanaynaa desktop ayaan keensanaynaa si aynu u isticmaalno asaga oo mp3 muuqaalka aynu rabno inuu darsanno haddaynu doono cod ahaan aynu u isticmaali karro iyanu samaynaynaa sidaa markuu ku yiraahdo waxaad dooranaysaa meesha aad rabtid inaad ku safgaraysato iminka waxaan dhiganayaa anigu xagga iyo desktopka ayaan dhiganayaa insha Allah magac baynu ula baxaynaa waxaynu tegaynaa file kadib waxaynu dooranaynaa export kadib waxaad leedahay export as mp3 sidaas marka aad tiraahdid waxa uu ka dalbanayaa inaad dooratid meesha aad ku save gareynayso iminka inaga waxaynu noo dooran desktopka ayaynu dhiganaynaa magac ayaynu la baxaynaa waxaynu leenahay casharka koowaad kadib save ayaanu leenahay waaynu arki doonaa meesha uu inoo geeyo halkaan uma baahnid adigu hadda meesha tan waxaa la isticmaalaa marka aad codad badan iyo codad dhaadheer iyo filmaan iyo aad u samaynaysid ama documentary marka aad u samaynaysid yaa waxaad samaynaysaa meelaha ka buuxinaysaa codkaaga si uu codkaaga u yeesho copyright iyo waxyaabo badan iyo tracks albums iyo sanadka iyo genderka iyo commenteska waxyaabahaas oo dhan ayaa meesha tan laga sameeyaa iminka uma baahnayn anagu waanu iska leenahay hadda codkii ayuu inoo save gareynayaa desktopku inoo geenayaa waa uu inoo save gareeyay codkeeni wakaas isagoo oo qurux badan waxaan u malaynayaa asxaabay inaad si fiican u fahanteen casharkeena xiga waxaynu ku baran doonaa cod aynu dibadda ka keenay oo computerka inoo ku duuban inaynu soo gashano kadibna aynu qurxino aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin fadlan haddii aad kanaalka ku cusub tahay subscribe tahay ilaawin like iyo commentigana waxa weeye waa dhankaaga casharkana usii share garay asxaabtaada si ay uga faa'iidaystaan kanaalkana ugu soo biiraanin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu